howlkan ay ka sameeyeen ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya degmooyin kamida gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan degmooyin dhaca dhanka xeebta ayaa waxa si wadajir u hogaaminaya gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyre Makaraan iyo saraakiil ka tirsan ciidamada qalabka sida oo kamid yahay Colonel Abdulqaadir Nuur oo ah taliyaha urka 28aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed howlkan xuduntiisa degmada Warshiiq ayaa mas'uuliyiinta kala kulmeen wax garad ka soo jeeda deegaanka hoosma degmada Warshiiq waxayna wax garad ku dhiirigeliyeen ciidamada qalabka sida mas'uuliyiinta hogaaminaya in ay dhigta dhiiga u daraan ciiday wadada ku arkaan iyada oo taagan mas'uuliyiinta ay howlgalkooda waxay ka biloobeen deegaanka hoosmaada degmada Warshiiq iyadoo halkaasi ay agta marsiiyeen isbaaroon kooxo ay halkaasi ku dhiganayeen ay shacabka lacaga baada iyo waliba marka qaar dhibaatooyin dil iyo dhaawac u geysan jireen qaar kamid ah gobolka baadka ka dhiga jireen kooxaha burcadaasi ayaa dib ay qabasiyeen mas'uuliyiinta hogaaminaysa ciidamada qalabka sida waxaan halkaasi warbaahinta qaranka goobjoog ka ahayd ugu horantii kaga warbixiyay howlkaasi waxa uu ku saabsanay Colonel Abdulqaadir Nuur maanta waxa ilaahay mahadiisa inaan isbaaroyinkii dadka shacabka ah masaakiinta lagu dhigaayay ee deegaanada Warshiiq yaalay inaan ka safeynay si ay u jeedaan dadkaas waa meelaha ay qoraxda ugu dambe jireen iyo roobka oo ku guuleystay 13 isbaaro ay ka qaadnay deegaanada Warshiiq anagoo fulinayna oo amirta ay nasiyeen taliyaasheena ciidamada ilaahay waa nagu guuleeyay aan u sheegaynaa shacabka inay si amni ku soo maraan wadada cidii isku dayday inay isbaaro dhigatana anagoo fulinayna oo amirta taliyaasheena waxa waaye shabaabka iyo midka isbaaro wareenaya isku markeen dhacaan sidaan ula dagaalamayna shabaabka ayaan ayagan ula dagaalamayna gudoomiyaha degmada Sheekh Axmed Xuseen Axmed Shiidka ayaa isna warbaahinta qaranka uga waramay kooxahaasi inay waxyaabaha muqaadaraadka isticmaali jireen oo intaas ku daray in aysan u dulqaadan doonin in falka aynkan oo kala ah ay dib u soo noqdaan waxaan howlgal la ka bilaabno hogaaminayo gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe taliyaha ururka 28aad iyo gudoomiyaha degmada Warshiiq oo weeliyay gudoomiyaha degmada Raagaale howlgal ballaaran oo lagu qaadayo oo lagu tirtirayo isbaarooyin gaaraya 13 oo gacanta la ciribtiray marka alxamdulillah waa u jeedin muddo baan tagnay dibkaas la qabadsiiyay ugu dambeyntii waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyre Makaraan waxaan sheegaynaa shacabka degan degmooyinkan ma kuwa isbaarada laga qaaday oo wadadan dheer dadka xereeraha degan inay ka waantoobaan dhibaatooyinka dadka maarta shacabka ama dadka shacabka oo safarka ku guda jiro iyo gaadiidka dhibaatooyinka loo geysanayo looma dul qaadan kara dhibaatooyinka ay wadada ku hayeen mana u dul qaadan doona haddii aan nahay maamulka gobolka iyo dhammaan ciidamada qalabka sida oo amniga ku shaqada leh oo ilaa furunta hore ayagoo jiro garaashooda shacabka ugu dhibaateeyahay wax loo dul qaadan kara maahan mana ka yeelin tilaabo sharci waafaqsan ayaan laga qaadaa Abubakar Maxamed Bacadle xarun goboleedka Shabeelle magaalada Jowhar